ما شاء الله وسيدي أنو فيليني وحنو رونا هانتي وشقيني سي أن عادي أهين دبيشو ونقول سعوتي قوشني وقول رنتي وسهيتي سومالي أوريغان وكوحدي يقول الرئيسي بريمير ليج كعيارة oo haddana sanadkii ugu horeeyay uu yahay haddana qaada koobkii marka waa wax lagu farxo waana ku faraxsanahay guys kooxda Somali Stars oo maanta ku guuleysatay koobkii championshipka ee Portland waxay idin rajaynayaa guul waxay idin rajaynayaa inaad noqotaan Soomaalida yar yar role model go Somali Stars عرفت منطقة هو temperature كهذا هو صح كور إنسان ولا قبضتين والله temperature أنا قبو زايد جري سو جديد وصل ديار قروني مركا محيط الحمد لله أنا رأيني تاس فرحة واية تيمك كل جود ما رحتي أنا everybody did a good job مركا إلهي نوانا القرب قلي مركا وحانو دليي أنا أوي وحانو دليي نكاس لاعب كنا تيمك 11 كيسة أنا أندي Come here, man. Undi, please talk to him a little bit and about the game. Man of the match. How you felt when you? Man, this game was phenomenal. Actually, everybody give 100%. You know that's what matters. And we got the win. We're the champion. عرفت ما نسيف عن وضع عضية غيب كوري مركا هذه عن قويان سوى ركتا وعيارتين والله قوة كبيرة بان كسو عيارني يدو يبرف كدايو سنو تيوان عيار جرني مركا وان لقب صني كل يبان موقتي قوة inkastoo ay dabayshu markii dambe haafkii dambeena saarneyd haafkii hore gool ban ka gaarsiinay goolkii waan ku badinay haafkii dambe difaacan xirnay marka inkastoo dabayshu aad xagga dambe haafkii dambe ay iyaga la jirtay haddana difaacan adkaysanay ilaahay mahadiina waan badinay guushana wayna raacday waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan dhalinyarta nin walba uu dadaalay waxa laaliyo wixii hayay uu soo bandhigay marka dhalinyarta aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantood laacibiinta xaggan jooga waana laacibiin mustaqbal weyn aad u leh insha Allah taala waxaan rajaynayaa insha Allah taala mustaqbalka si weyn inay xaga ka sii wadaan Gentlemen, I want to thank you all for coming and participating. I want to thank you for coming and participating in this tournament that organizes Latino Soccer League. It's a multicultural organization that we have teams from different parts of the world. You guys from Africa, we have teams from Mexico, Guatemala, El Salvador. We have teams from Europe also, Russia and Romania. And we'll have some new teams coming up, new season. We'll have some Asian team, a team from Vietnam, and we'll have a Russian team, also from Uzbekistan or something like that. I don't remember the name of the country. And soon we'll have some Argentine teams also. So I want to thank you all, and I want to congratulate the champion, Somali All Stars. And we will proceed and give away the trophies and awards to the players. So somebody hold this for... What do you want to say? Yeah. Okay, now we will go ahead and give the awards first. Okay.
the best coach of the season. We didn't have anybody else to choose, so we had to choose Gulen. Best coach of the tournament. Thank you guys. maanta farxad weyn ah tiimka Somali Star ayaa waxaan farxadna waay ma coachkayga guuleed oo maanta award la siiyay laguna sharaftaray coachka inuu yahay marka waxaan u rajeynayaa tiimkayga sanadkan isku xigaba inay si lamid u dadaalaan in kastoo aan taageerayaashii Soomaalida aad u badatay isla markaana aan rajeynayno kuwa badan oo inay noo yimaadaan. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, guys, as you all know, we have done a voting online, and yeah, we had to choose best coach, best manager, and the best players of the season. So the best midfield was chosen. I didn't choose that; somebody else chose online. Mukhtar Isaac. Mukhtar. Guys, si edebna tiimku uu sug yahay si edebna line ka loo galo. Come on. Raiis Abiya Thank you. Let me give a call, man. Don't worry about me. I got negotiations. Champion. How are you going to go? Mr. Sheikh Ahmed Adel. You want to go in the line? Woo! Yeah! Man of the game!
No, he's the captain. Goalkeeper, he's the lowest. Don't leave because I want to take a picture of all of you. Okay, okay. Captain of the team. Right here. Adelante, adelante.